كليدو تام مرك بس طولت جول صباحا وأخوان على وضع معلم وصور دايان معلم كرجيس مجدا فيرا كوبلاودي جوجول واحد دلاي أفو كهر هتدونا فيري وجوجول هذانا وصيها هانتنا جوجول فيري markuu macalinka carray xabadoo ku riday macalinkii ma ahan burcad furanaysa hantiila haysta diamond iyo dahab ama wax u dhigmo mana ahan baxsad iyo tuhunsane ay baaxsanayaan ciidamada amniga laakiin waa mid ka mid ah macallimiinta howlwadeenka ka ahaa imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee sanadkan oo ay laadiya jalaafo u kalootinayaan arday uu u tuwan yahay moole iyo saaxiibadiis joojole banya iyo jex waana 19 juun ee sanadkan oo ahayd maalintii u dambeysay imtixaanka معاد عبد الكريم عثمان مولا oo ka tirsan nabad sugidda ayaa dhowr jeer looga joojiyay imtixaanka qish waxa uu isbiday awood uu kula xisaabtami karo dhibana xasan sheekh maxamed oo ah macallim iyo howlwadeen kamid ah kuwa sida gaarka ugu xil saarnaa dugsiga imaam maalik ekis axmed gurey oo ah xarun kamid ah goobaha wasaaradda waxbarashada ee u asteysay imtixaankii shahaadiga ahaa macalinka ay isgaarnay exam dawladeed galay oo national لو ما دو يكنسل جري لو ما دو يكنسل جري كبعد واس أرجني واس وريسني مركز كبعد واس قبل حبض أريدنا وحواي بوقة معنا ماشي كجرا وبدي درتي معنا أسيكم مريدين جرافة أجرسينا وقعوا فيروا حبض يا كردبة حبض سكولد أنا وت يا كردبة سكولد معنا ماشي عقاب بوق نقطي كرة أريد معلن كدنا عيسى حتى أمريد دنا كلا أريد ساسي واحد عين محاس كو قبتين معلنك إكسام دولية جلاي ما دوين وإيه كنسل جري محاس ميسولا كنسل جري ما دوين كا ما دوين كو عن واحد قال الله كمالين ما دوين كو إيه كنسل جري كبعد يا مركا أنا وضع هذا الناد معي وضع هذا كان وإسأل كويني كبعد أسخونا ما أنت قدام بيسوي إكسام كده مالما كلا دوين ما لقى كنسل جري مادي لو ما لنا كلا دوين عيد واسكت سبدي أحد أو كان لا كنسل جري ما دوين كم حين وكيمستري فيزيكس معلن كا صاريناني سكسا واني أورد سدو معنا واطا جرينا مين واسكسور بحناني أسيم معنا سكما أسكو أرق أنا مركز سكول كيما هذا دلني رضا إلى وضع السعودان بعد معلنك waa iswareysanayn iswareysano macnaha wada hadalna xogaa meesh murna ka dhaco isfaham weeni marka macalinka saas darteeda xogaa gacanteeda iga gaartay bir aan ku garaacay oo macnaha meelaan aan u garaacana ma jirto feer way baalootada eridane meesha buuq ka imaad darteeda ugu daminay dhinaca u wada baalootada qof shakhsi oo ku ridana ma jirto macalinkana maalinta koowaad oo examka ii cancel gareeyay قشوا يجيش كي يحتموس واركن ما علمت لبعضنا واحد قشة وأنا قشة مجرين ما ددوا يكنسل جري لبعضنا قف سكول كاجم امتحان كلين جول يبيان ما يرجعوا السورة عجرنا أنا متفق وتسورة عجرنا اسكو حافظة يعني وحنقول سكول ما كل سنة امتحانك ما مركا أنت سكسوهشين امتحانك كله مات رجعنا معناه وحاسكين أنا متفق نكان جول صوعي كبعد حافظة معناه أساس وغيره بنيها هورو أركوا الصورة عني مركا الصورة عني كبعدي معناه معلنك سكم وأرجع رجع مرة والبنو السورة عجرني اسكو حافظة يعني أو ويجو سعودي كسامك قالت كجرا أنا اللي في قراعي أرتل ما جرت أنا حبض كل ذا ما جرته مدرس دحاله إن معناه أنا معلنك نفسدي سنة رافسية وأدل ربي على أصلا ما جرت معلنك وايز جارن مرنا اسكو جارني مرن كبعدي عوضاء gacan iga gaartay kabacdina macalinka waa raalgelin iyo kabacdaas aragna aaraadii familkiisii wax dham raalgeliyay ina macalinka isgaartaan oo saas u raadiso adaas kor maataan aad dagaal la aado maxaa keenay macnaha macalinka exam oo ii cancel gareey bilaaqash Soomaa saas darteeda macnaha macalinka waa wareystay macna waxa dhacay yani exam kan mustaqbalkii waa ii cancel gareeynis xogaa macalinka si qaldan ugu jawaabay kabacdiya isgaarnani asay cabdullaahi axmed jimcaale joojole oo ka tirsan militariga ayaa isna ka hor sheegay bilowgiiba garsoorka sida uu la safnaa saaxiibkiisa mucaad oo ay lafa hore isku yihiin mana ka qabo dood in halkaasi uu u tagay hiilo qorsheyga inaan macallin wax gaarsiiyo ama qof inaan dilo xalaamta way sheegay macnaha qorsheyga meesha ku jirin waxaan rabnay maalintaas maadaama ay ahayd maalinta ugu dambeysay imtixaanka examka
goobaha baashaalka iyo goobaha xalaabta dabaaldeg inaan laakiin qorsheyga meel maalintaas inaan qof aan bilaadana inaan wax gaarsiiyo see wax u dhacay markee sida wax u dhacay ka bacdi xalaabta macnaha wadahadal ka bacdi meesha macna fal waxa ka dhacay in taqaana la isqabto adiga wax ma laga qaaday aan wax laga maqaad inta ka soo gashay sheekada marka waa wadahadal oo meesha imaado oo xalaad xumaaday meesha oo xalaabta goobta xadira markaas wax ku dhaceen taas wax ku imaadeen intaas wax ka badan u daawo kaatay wadahadalkii marka wadahadalka xumaaday wadahadalka xumaadaa هل وحال جارسينا حالات أفكنا أو حالات إسلافنا أو قعان إيتكب ساسي مركو حق جارين يعني خرشي ما بين النكاس قعان أو قادو أم قفل ماذا أم مالتس إنا واحد قف حق جارسي خرشي ما بيكون جريم خرشي مالتس هاي ما دام هيت مالت ود بيتحان كأنه قلعي إنا مالتس دول دق أم ملاس أم جوابات دول دق إنا أو في حديد أو ذاك كلا أو أكغب قاتو إيه ما خرشي إنا قف حق جارسي هذه سيكون تمد مشاس وأنا سعود يلا سعود وأنا سعود موتا ودني صاروا كل شيء أنا ما هن قرشة بانتس إنا قف حق أجرسيو أم قف بلادنا أم إنا أو حد بات أجرسيو اسمه درتي أو حكي تعلمت دباتي اللي مش كل عاد ساسا مرك أكل لفتنا معلك أقعنتي أجرسيو يا اسفهموا معلك يعني هذه أنت كسوقش هذه معلك المعاد اسفهموا مرك أنا ما ذو حارب إنا أكل قبطار لأن ما يصير إنا حارب أكل عيد وحير مرك معلك أنا قد باش حالتها يعني قبل أوتو مركب بلاطو معلك وجه في سماع معلك مركز إني واحد نقيب حالته سيدا سكوا قبطنا معلك هذا واحد كده هذيك سكول ما قليش امتحان ما سكول كيف قليش هذيك لا تيجي يكون فبر أو قليش مركب موتو أسمته مركب امتحان كارد منو حالته إيش يعني ما شو إيمانها هذا حالته أدقنا موتو أسيق ما وطن مسوحة وطو بيان أسيق وطن موتو كوجر أسيق وطن موتو أصلا موتو سوى ما شو إيمانها حافظها يجري مركب مرول حالته أو امتحان كصباح فاسل حجران abuukar ismaaciil xasan banyaa oo ahaa daroowal saaxiibadiis ayaa isna iska bariyeelay been masheegtada CCTV-ga ah waxaan igu maaday Cabdullaahi waan is soo raacnay waxaan imaanay macallinkii goobta oo macad ku galay imtixaanka aaway imaanay marka daroowal mootada anaa kee markaas anaa wadooyo mootada meesha albaakimay macaadi iyo Cabdullaahi waa soo lugayaan ani gadaashooda socday marka falka la geysaro waay marka gadaashooda soo socday ani marka falka meesha lagu geysto ani wax qiimo ku leeyahay lug agaasa mootada yaale macad arkada adiga mooto wado goorma barad ani laba kalaati saddex barad marka meeshan maxaa loo yimid meesha imtixaanka lagu galay oo mucaadku galay maxaa u maatay ninka dham aniga maalintaas maalinta ugu dambeysay imtixaanka ee qorsheena wuxuu ahaa inaan meesha ku dabaal degna iska wareegno marka معاذا وحنا معنا ماشنا وحق سوق هذا أسرعنا نودي مركز الصوران ما أوجينه هذا معاد إن معلنت كهري سنة لقى قاضي ما دام صاحبتني سعودين امتحانك اللي قاضي ما أوجينه ما أنا امتحان اللي قاضي في الكاس ما أوجين عبد الله مركو يما الصور على ماشي معنا نروح ما كور قوم لهم مركز ماشي معنا في الكاس على الكل مو وباشالنا وباشالنا مع كودا macnaha maalinta ugu dambeysay imtixaanka maadaama ay ahayd inaan iska soo wareegno iska soo dabaal degnay oo qorsheena ku jiro inkastoo cabdiraxmaan jeex baxsad ka yahaa fadhigan haddana moola joojole iyo banyaa isku xarun qura kuma wada gelin imtixaanka oo waxaa kala reebay nambarka meeleynta maxaa dhaca marka iskuulka laga soo baxay waa kuwaana ayagoo macallimiintii inay raacaan rabo diyaarun u ah mootadina la koraayo sida ka muuqato waa afar hala maqane ah waa uu karbanya iyo Cabdullaahi Jojole iyo Mucaad iyo Cabdiraxmaan Jeex oo asigana maqana ah markaan kale waa maraan ay adana soo galeen koobinta ay soo galeen waaye markaan macallimiintii ayaa hor socoto geeskan waa macallin fanaan shaati madow waa macallin kala dil doono ustaad Xasan shaati cadahan waa macallin kale geeskaasna waa macallin kale ayagana waxa waaye koow mootolahan عبد الله دعس وكحجو معاذ وكهر يا عبد الرحمن جيح وأنت جرو عبد الرحمن جيح وأنا أنت جرو عربنا مركب كامل ردنا في سحنو مركب من قدومي
وموتدي مركي سارين موتدا قابك u saarin fiiri waa rinta macnaha mootada inta waa laga saaray inta waa laga saaray afar lagu fuulay hal mooto feekon waxa loo socdaa marka taqaan waxa loo socdaa macallinkii qiimaha badnaa ee kaadal muallim an yakuna rasuulan heerkaas la gaarsiin ayaa loo socdaa markan in maxaa la rabaa marka in la dilo oo la jir dilo oo isku daydil lagu sameeyo bastooladna waa la wataa qaabkan waa loo socdaa marka saan u fiirs marka qaabkan ma aha qaabka ardaynimada ma ardayda ayaa ban ardayda kale oo saaxiibadooda ayaa ban intay u fiirinayaan ma kuwa kala shaad soo gatay isli marka waxaan rabnaa qaabka dilku u dhici doono saan hadda waa macallimiintii oo dhammaystiran afarta macallin oo dhammaystiran waa macallin xasan oo asna ninka ciilka loo qabo ah waa midka fanaan madowga wato waaye ee shaatiga madow waa fasaxina marka macallimiintu waa socdaan cabdiraxmaan jeex iyo mucaad ugu horeey marka maqanihi ninka maqnaa iyo mucaad oo ninka bastoolada wata wali ayaga waaye labadii ay wali ku jirto waxa ku soo darsoomaayo waxa ku soo darsoomay joojole abdullah dacs wali aw karbanyaa gadaal oo jira macallimiinta marka tashina jiro waa la kala baxay ustaadka inta ka hadlay nacan u baxay macallinka in la dirdil rabo oo loo socdanay waa midka dhaxda ku aadan oo la raadinayo macallimiintan kalena geesi u baxeen marka atashika macallimiinta jaawu galay fir haday maad waa fir hadii ay maad gacan qaad wixii la iska dhici kara la iska dhacsho saasa lagu heshii markan ilaa waa la dareemin la soo daba socdo abukar marka waa kana waa dhinta marka cabdiraxmaan ninkaas ku aaday kan ninkaas ku aaday joojoolan labadan ku aaday marka ujeedka ma ahan saddexda kale ma ahan waa ustaadkii qaaday physics-kii iyo biology-ga qaado waay ustaadkaas loo socdaa oo mucaad uu raadina waliba aad dabada ka gala fiiri nagu dambi waa kaas kilidu taab marka bastooladii uu soo baxa ustaadka kalena meeshan lagu racdeys waa kan cabdiraxmaan jeexsan wuxuu iska dhigaa ilaa ninkii bastoolada wato aslina bastoolada wato iska dhigaa saas uu leeyahay waa cabdiraxmaan jeex ustaadkaas markiis u baxay meeshan waxa ku harta marka saddexdii macallina ku harta macallimiinta marka waxay isku dayayaan waxay u malayaan in gacan la aadi doono inay ka dhacshaan isku dayayaan macallinka kala joog leeyahay kan kuwaana macallimiinka aadi waa kaas markaan waa markay bilaabanayso mid gudoomiye markaan marka waxa waaye joojo la gadaalo maray lugtu diyaarsana lugtu qaab baa wuxuu diyaarnaa inuu jalaafo baxsho macallinkina waa ordamaano xabadii lagu riday marka macallinka kana la soo laabto marka macallinka waa orday macallimiintana kale waa soo ordayaan waa kuwaana labada macallin waa soo ordayaan macallin kaligiis ma jirtaa feera ku bilawday joojole wax dilay afku ka haranti doona fiiri waa joojole waa wali joojole dilay mucaadkina haddana waa si harantina joojole fiiriya xaniya ku harantina ila labadu dhaxdooda qaabku haranti ugu dhufo doona fiiris gudoomiye waa loo dilaa fiiri waa kaas ma jedido macallin waa istaagay waxa kaaga daran gudoomiye mucaad waa kaas arhal leey muxuu sameeyaa marka haddana bastoolada ku soo taagaa fiir mujada bastoolada ku soo taagaa soo leey macallin waa kana wixii loo dilay waa yaabeen qaabka loo dilo leeyahay waxaan arday maahan teekay maado leey ma qiimaha macallinkeen aqoon yaaba ku far macallin goofaniyo haysta dhiiga ka socdo mar labaadna waxaan sameeynay wajhadooda ayaa sameeynay hadaan gudoomiye macallimiintu waa kuwaana marka insaan isku la socdaan ayaguna waa ka dambeeyaan oo saddexda mootoli waa kaasa oo abukar ahaa saan hadan la soo dabagala macallimiinta attention gal marka waa marka la kala baxayo mucaad waa ka mujida beex toos waay labada mu socdo ustaad xasan uu raadaa bas jalaafada fiiri marka iyo feerka fiiri afka fiiri gudoomiye si looga harantay waxa saas loo dilaayo waa macallinkii qiimaha badnaa ee wax baraayay qaabkaas uu dhaqmaayaan macallimiinta ayaa qabay walwal ah in rabshado ay dhici karaan waxa ay isla meel dhigeen waddo kasta oo ay naftooda ku ilaalin karaan badqabkeeda laakiin marna malada uguma jirin in loo isticmaali doono xidigley 15 qaad ah waa kan dhibana xasan sheekh maxamed iyo saaxiibadiisa shaqada oo bilowgiiba uga warbixiyeen garsoorka sida ay wax u dhaceen horta waxaan ka mid ahay macallimiinta imtixaanka ilaalinaysay waxaan gudinayay waajibaadkeygii maalinlaha ahaa dhalinyaradan dabcan kuwa kale ma aqaan laakiin waxaan xarunta aan ka shaqaynayay ku arkay ardayga Sumcad imtixaankii markuu dhamaaday maalinka u dambeysay laba maalin waxaan ka qaaday ardaygaasi mobile qash ah oo wax ka qashay marka
taasina waxay ka mid ahayd shaqadeeda markaas aan gudanayo wax kaloo tacaamul ama dhex marin hadday noqon lahayd hadal iyo wax la mid ah wixii ka dambeeyey markuu imtixaanka dhammaaday maalinka u dambeysay waan soo baxnay maalinkaas u dambeysay habeenka ka horreysay ayaa anaga iyo macallimiinta meel madal aan ku jirno group ah macallin kormeerka uu ku jiro waxaan isku soo qaadnay amnigeena maadaama maalinka u dambeysay inta badan ilmaha ay erbishaad sameeyaan waxaan ka codsanay kormeerka in uu yani noo diro ciidan dheeri ah si amnigeena loo sugo nasiib dartaas ma dhicin ciidankii aan dalbanna maan arkin maalinkaas marka waxaa noogu soo xigtay markii la baxaye inaan anaga ka macallimiin ahaan inta kulanno aan dhahno macallimiinii aan qorshe samaysanno si aan kaga difaacno dhibka ka imaan kara ilmaha waxaan isla garanay inaan koox u baxno inta isku aagahaba inay israacdo si macallinka dhib loo gaarsiinayo kale yani aan ugu hiilino waxaa dhacday in anagoo 9 macallin ah soo raacnay isku aagaan ahayn aagaan warshadahan degannahay anaga 5 ka mid ah dhankaas shir kale aadeen anaga iyo ani iyo 3 kale oo macallimiin ah oo isku aag ah waxaan soo aadnay dhankan jaamacadda SIU dhankaasaan deganayn markii aan derbiga iskuulka ka soo dhammaanay horta intaan soo bixin ka hor ayaan ilmahana aragnay wiilashan ayaan aragnay oo mooto feekoon wato iskuulkay soo galeen dabcan way ku soo wareegsadeen iskuulka kadibna waa baxeen mooto feekoon ay wateen ani marka shakay ay galay markaas waxaan is dhahay amay dhib wadaan ani shakay ugu jiro ayaan soo baxnay markii aan soo dhaqaaqnay iridaan ka soo baxnay wayna soo raaceen iridii naga soo raaceen ciidankani meesha waa fadhiyeen kulley oo ilaalada qaybs ka mid ahay markii ay soo baxeen anagana aan soo baxnay mootadiis ay soo qaateen ayagana marka feekoonta ani marka waa dareemay macallimiinta waxaan dhahay macallimiinay ardaydan waxbay rabaan inay sameeyaan aan yani heegan aan galnaa dhahan macallin walba heegan ha galo aysan dhicnaa dhaha macallin in la iskugu tago marka ayaga markaas 4 ay ahaayeen aniga inta arkay marka waxaan dhahay anagana 4 aan nahay ayagana waa 4 nimana ku aadan dhaa marka aysan dhicin in macallin lagu goobto ani markaas isma dhahayn oo hubisan yihiin waxaan dhahay waa gacan ka hadal ana markaas waxaan diyaar u ahay ardayga soo aado inaan iska dhiciyo iska difaaco inta karaankayga markaan soo baxnay oo soo dhaqaaqnay xoogoo soo fogaanay ayay mootada ka degeen 3 mootada ka degtay ama 4 wixii ay maqan midna mootada waday markay mootada ka degeen anagana waa soo soconnay marka cabaar soo dhaqaaqnay oo luuqa aan soo galnay SIU ku aadkeeda aan soo galnay ay soo socod boobsiiyeen yarkaan mucaad markuu ay la siman yahay ayuu la soo baxay biskoolada la soo baxay istaaga ayuuna dhahay ani marka biskoolad ma filayn macallimiintana ayagana ma filayn biskoolad marka biskoolada la soo baxay ayaa macallinka mid ah carara marka oo hore u cararay markuu macallinka cararay xabadoo ku riday macallinka guriga ka gala marka meesha ku yaallay ayuu ku cararay macallimiintii la socotay marka 2 ka mid ah gadaali u laabteen aniga marka way hareereeyeen marka dabcan waxaan dareemaa taageedka ana ahay si markaas aan dareemayo anay hareereeyeen 3 kale asagana waa horteeda soo istaagay kadib waxay ugu bilaabeen marka inay kala tuuraan arday kamid ah jalaafi ii bixiyay dhulku igu riday xaraantii waxay ugu bilaabeen iyo wax la mid ah ardaygaas mucaadna biskoolada uu wato intiga dhuftay afkeeda wuxuuna ugu dhahay aadama imtixaanka kansali karo ugu dhahay markaas hadal noocaas ugu dhahay anigana waxaan ku dhahay imtixaanka ma kansalinay iga leexo marka saasoo halkaas ugu dhuftay biskoolada afkeeda wixii ka dambeeyay marka dabcan ciidankii la gaarsiiyay meesha joogay ayagoo ordayay yimideen kadibna waa iga tageen marka ayagoo iga tageen saasoo kiis u dhacay muxuu sameeyey markii laga qaadayo imtixaanaad mucaad mobilka ana horta kormeerka wuxuu ii xil saaray korjoogtada oo ii dhiibay korjoogto ahaan oo ii dhiibay shaqada waa kala qaybsaneed macallimiinta qaar ilaa lagu qoray macallimiinta qaar waxaa lagu qoray in ardayda baxayso kale irinta ka sii bixiyaan macallimiinta qaarna waxaa lagu qoray korjoogto oo ardaygii mobil qarsanayo kale iyo ardaygii baaritaan u baahan oo kale aan qaabilsanaay marka fasalkiisa marka 2 maalin aan soo galay 2 maalin mobil aan ku qabtay arday kale xataa waan ku qabtay oo ayaga oo asiga fasal kamid ah xataa waan ku qabtay marka asiga markaan beel ka qaaday wuxuu yani way la hadlay wuxuu yiri si hoose aan kula hadlo maxay ahayd si hoose iyo xalli anigana waan ka diiday waxaan dhahay ardayda kale waxay marayaan maraysan cadaalada loo baahan yahay dhahay
arday oo waxaa jirta imtixaanka laga bixiyey oo laga kansalay imtixaanka marka adiga dadka kamid tahan dhahay imtixaankaagana waxaan dhahaa waa la kansalayaa oo kormeerkan u dhiibayaa marka waa kaasaan dhahay marka waa ka diiday wax afgarasho ah wax kale oo la dhaxmaray ma jiro marka hayuu ilaahay marka asaga markaas hayuu yiri waa iga tagay marka wax oo kaloo hadal dheeri ah ma is dhaafsanin wax dhaqaaq kale lama sameyn markaas asaga kadib waxa ku soo xigtay in imtixaankii uu dhamaaday kadib dhacday in saas u dhacday ku soo xigtay hal maalin bis ma ka qaadin inta kolay laba maalin oo maleeyahay saan rajayahay hatta hal maalin huba maalinta kale shaka igaga jiro laakiin hal maalin huba oo maalinka axad ahayd aan aad u huba maalinkaas huba adiga intii aanan ilaaliye laga dhigin ma soo buuxisay shuruudahaas ku xusan xeerka imtixaanaadka oo ay waajib tahay in guddiga imtixaanka qaran ay fuliyaan horta shuruudo qoran oo waxaa jiro nolol sheega mar walba ka macallimiin ahaan marka imtixaanka ilaalinayno sida in waxyaabaha qashka oo kale inaan ilaalino in mobilka oo kale iyo waxyaabaha imtixaanka lidiga ku ah oo dhan inaan ilaalino ana loo sheegaa laakiin wax aan saxiixayno ama wax ma jiro balse wana loo sheegaa kormeerada noo sheegaan in imtixaanka bilaaban ka hor waxaa noo sheegaan dadka kale ka sarreeya guddiga imtixaanaadka noo sheegaan all right laba maalin oo isku xigto ayaad adigu ilaalo ka ahayd fasalka oo imtixaanka ku galayay eedeysanaha la yiraahdo Mucaad soo saxma saxo in adigoo ilaaliye ah laba maalin oo isku xigto hal fasal ilaaliye ah ka noqoto waxa ku fasaxay soo maha kormeeraha horta meeshan ka saxo waxay aniga shaqada la ii dhiibay oo la ii xilsaaray markaas waxay ahayd korjoogteynta waxyaabaha mobilada kale iyo waxyaabaha baaritaanka ardayda kale markaa qaarkood baaritaan jira la sameeyay oo gacan saar oo guud taas aan u xilsaarnay aniga baaritaankaas waxa la sameeyaa ardayga intuu fasalka ka hor imaanay soo sax ma waa la sameeyaa kadibna waa la sameeyaa adigu marka sida ku xusan xeerka imtixaanaadka ilaaliye waxa loo yaqaanaa qaf ku jiro fasalka una qaabilsan guddiga imtixaanaadka qaran in inta ay socoto saacadaas imtixaanka ah inuu ardaydaas waardiyo adigu sidaas ma yihiin shaqadaada way ka duuneyd soo ma shaqadayda labadaba isku ahayd marna waa ilaalinayay oo marka macallin maqan yahay oo kale dhextaal waa ahaa oo fasal qaar waa galay mararka qaarna waxaan ku qornay howlaha fududeynta imtixaanaadka iyo waxaan ku qornay korjoogteynta guud aan ku qornay waa gartay waxa sheegtay hadalkaaga waxa ku jiray mobile inaad qash ahaan uga soo qaaday sax ma saxo nooca mobile ee aad qash ahaan uga soo qaaday maxkamadda ma u sheegi kartaa waa niclo waay okay xirfadaada aad u leedahay ilaalinta imtixaanka ma kamid tahay in aad aruurisid mobeelo ay marnaba suuragal ahayn in wax qish ah la soo marsii karo kormeerka wareegay qolo kala duwan ayaa kormeeray ma marka maxaa qolo kormeeray qolo kala duwan kulay adiga doorkaaga ma sheeg ani doorkayga wuxuu ahay campus korta waa weynay campus weyn oo ahay oo ilaa iyo 10 block camal dhan marka macallimiinta marka waa qaybsanayeen kaliya ma ahayn projectada xitaa gabdhaha ku jira macallimiin wiilal kale ku jira macallimiin aniga block ku qornay block dambaan ku qornay gadaal ah oo hadda fasalka ardayga ku jira kamid ah iyo block ka soo horay labaad block ku qornay in aan wixii warqado loo baahdo kale wixii imtixaanka loo baahdo kale wixii baaritaanka wiilasha loo baahdo kale oo dheeri ah oo kale waxyaabahaas aan ku qornay shaqaasan lahaa aniga marka adi hal fasal ma joogin laba maalin may ma joogin waa wareegis adiga hadda marka maadaama maxkamadda u faahfaahiday waxaan u qaadanaynaa doorkaaga inuu yahay kormeere soo sax ma may korjoogto oo kormeerka ay xilsaaray kormeerka ay xilsaaray okay korjoogte caawiye mobilka maalinta koowaad ayaad ku qabatay Mucaad maalintaas ma sheegi kartaa imtixaankii oo fadhiyay maxkamadda maalinkaas wuxuu fadhiyay imtixaanka maadada koowaad waliba maadada physics-ka ay maalinta xigtay sidoo kale adigoo howlahaagii kormeeridda ku jiro ama maaragtay korjoogteynta ku jiro ayaad mar kale isla galaaskii oo Mucaad joogay ayaad ugu tagtay isaga oo xiisad kale ku jiro ayaad mar kale qash ku qabatay Soomaa muu sheegi kartaa nooca qashka aad qabatay maalintaas labaad maxkamadda maalinkaas isla mobile loo ahaa kulay mobile qash ah oo nicla ah oo
markaan baaray mobilka xataa waxaan ku arkay goobagelin su'aalaha goobagelinta ku arkay oo masjid ahaan loogu soo diray waxyaabahaasaan ku arkay. waa gartay mobilkii oo maalintii koowaad adigaa ka qaaday mobilkan waa mid labaad waay soo maha haye adiga maadaama aad tahay qof korjoogteyn ah labada mobil iyo waraaqadaha markaad qaaday adiga ma iskaa u haystay mase cid kaaga sarreeda ayaa jirtay oo aad ku wareejiday markii la soo qaado horta habraaca jiray oo noo sameeyay kormeerka habraaca wuxuu noo sameeyay ardaygii lagu qabto qash ama mobil in la soo qaado in imtixaanka la soo qaado waraaqad loogu dhajiyo oo qash mobil ah mobilka iyo kaarkiisana loo dhiibo kormeerka. marka waxaan sameeynay warqad waxaan ku dhajinaynay qash kadibna waxaan u dhiibaynay ilaaliyaha u dhiibaynay macaanka jooga meeshaas mobilka iyo kaarkiisana waxaan u keenaynay ilaaliyaha waxaan rabaa kormeeraha sawirka qaadanaya marka qaabkaas la sameeynaya. markii arday oo ku jiro imtixaan qaran oo shahaadi ah waxay mas'uuliyadiina tahay soo maahan in ardaygaas aad dhammaantiin aad ka caawisaan siduu imtixaankaas ku moodi lahay aadan ka caawinina sida imtixaankaas uu ku weylahay. horta caawintu ma aha in ardayga wax qaldan lagu caawiyo ma aha. ardayga waxa aan ka caawinayno waa wax waafaqsan xeerka imtixaan gelista ee wasaaradda u yaala. wax kasta oo liddi ku ah imtixaankane ardayga waa ka celinaa wixii kaloo nooga aadan oo ka caawin ahaan oo aan liddi ku ahayn wasaaraddana waa ka caawinaa ardayda. marka saas caawinta ku imaanaya. su-aasha kale aan qabo waxay tahay markii korjoogto ama qof maamul sare ah iyo arday imtixaan galaya ay isku dhacaan waxaa jiro guddi oo guddiga imtixaamaadka ay soo saaraan wax aad la xiriiriday eedeysanaha oo aad u dirtay in uu cabashadiisa la aado ma jirtaa halkaas? cabasho ma jirinba. cabasho ani ii sheegay ardaygaas ma jirin. cabasho way taagan tahay sababtoo ah laba imtixaan ayaa laba maalin oo kala duwan ka qaaday. soo mas-uuliyaddaada ma ahayn in aad u tilmaamto ardaygaas cidda haydo imtixaankiisa ayna tahay inuu kala xaajoodo? horta cabashada aniga ma taalo haday jirta xataa lacala arday way jirtaa marka qaar wax noo sheegto ana ardayga wax ii sheego oo dhibkaas qabaa dhaho isla markii waxaan soo aadiyaa kormeerka shaqadeeda ma aha in cabasho qabto laakiin soo kuma dhihin imtixaankii ayaad iga qaaday waxaan u baahanahay imtixaankeyga inaan cabasho ka furto soo kuma dhihin? maya ma dhihin. soo mas-uuliyaddaada maaha qof kasta oo aad dukumentiyadiisa aad qaado in aad wargelidid maalintaas in dhacdo noocaas ardaygaas aydan dhex mareen loona baahan yahay guddiga oo khilaafaadka inay xaliyaan? kormeerka u dhiibaan ku dhahaba. kormeerka wuxuu ka mid yahay guddiga khilaafaadka. kormeerka asaa mas-uulka ah xarun Soomaa saa u sareeyo. waxaa jirta soo maaha markii dhibka adiga ku gaaray inta aanan la soo xirin saddexda eedeysane in ehelka eedeysanaha iyo adigaba aad maaragtay wada xaajood aad gasheen oo dhibkii ku gaaray lagaa dhayay ka macalin ahaana aad cafisay ardaydii aad waardiinay imtixaanka? taas waa jirtaa laakiin waa ardayga mucaad lagu magacaabo bis ehelkiisa ay soo gaareen familkeyga iyo familkiisana waa is arkeen waana ka heshiiyeen arrinkaas. waxaa isoo gaaray warqad nootaayo oo aad ku saxiixan tahay sawirkaaga iyo sulkaaga uu saaran yahay oo aad tilmaamaysid wixii dhibku soo gaaray in aad cafiday eedaadina aad la laabatay. cafinta haddaan ka hadlo eeda ani ima taalo koley maxkamadda u taallaa laakiin cafinta waa sax. mucaad waalidkiisa waa familkeyga u imaadeen waana laga heshiiyey arrinkaas. cafintana waa jirtaa oo yarkaas mucaad ah. xilligaas adiga aad iscafiseen ehelka ama maaragtay eedeysanaha mucaad ma ku wargeliday guddigii imtixaanada adiga aad ka tirsaneyd ee hawshaan aad u qabanaysa? waa ku wargelin. waad gaarsiisay soo maahan heshiiskan? waa gaarsiiyey. guddiga maadaama ay adiga maaragtay ay ku shaqaalaysiiyeen intii shaqada ay socotana aad ku waxyeelowday waxay caqbaleen soo maaha heshiiskaas aad wada gaarteen dhinaca ehelka eedeysanaha? koley su-aasha jawaabteeda hadda aniga kuma dhihi karo laakiin inaan u geeyey ayaan ku sheegi karaa keliya. ugu dambeyn 28 bishii 6 2025
ayay ahayd goorta heshiiskan la gaaray sida ku xusan notaayada. صح هو arrintaas waxaan kala socdaa kaliya markii ugu dambeysay imtixaanka noo dhamaaday oo maalintii ugu dambeysay aan bixinay marka macallimiinta dardaaran guud waxaa siiyey kormeerka marka kormeerka waa qaadanay ugu dambeyn ardayda wuxuu dhahay markay baxaan ka hor maalintaas ka horna waa la wadaagnay in ardayda rabaan inay faldimiye sameeyaan kadib uu noo sheegay wuxuu dhahay ardayda markay baxaan ka gadaal mar adi muddo 1 saac ama 2 saac marka fariintii aan qaadanay waa ka dambeynay muddo 2 saac ama 1 saac bar camal kadib aan soo wada baxnay marka anigoo dhowr macallin 9 macallin ah marka 5 waa naga horeysay anaga marka waan leexan marka jiirada aan galnay waxaan arkay ardaydan soo socotay marka gadaala fiiriyay waxa dhahay 3 arday soo socotay maxay dimacsiin kadib marka waxay dhaheen marka hadii ay 3 yihiin waa iska caadi waxba naga ma qaadayaan kadib waa iska socday markaani muu maleeyay marka kadib waxa arkay xabadda dhacayso ana marka waa dambeeyay marka si socday marka macallinka wuxuu dhahay ardada anay rabaan marka daan aniga idaliin marka asi waa naga horeeyay aniga waa dambeeyay marka gadaal ka gaabsaday marka muu maleeyay marka ardada inay hub wataan waxaas kadib si lama filaan xabadii aan ku maqlay kadib aniga waa argagaxay gadaal u laabtay waa ku laabtay xaruntii ciidanka wargeliyay kadib ciidankii xogaa si fiican ima raacin cabaar waa daaheen kadib laba ciidan ay soo raacday meeshii ay imaanay macallinkii waa dalas wixii lagu sameeyay kara lagu sameeyay aan naga hor imaaday kadib xarunta ku laabanay warbixintii waa gudbinay marka intaasaan joogay goobjoog u ahay agaasimaha xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xuseen muuse sharaawa ee maxkamadda ka dhageysatay warbixin la xiriirto macluumaadka iyo maareynta dhacdada sanadlaha ee imtixaanka shahaadiga ah iyo ka wasaarad ahaan sida ay ula falgaleen kiiskan ugubka ku ah 10 sano kadib. wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxa ay qaadaysaa imtixaanka qaran sanadkii 11aad sanadkan waxaa imtixaanka u fadhiistay arday gaaraysa 39382 arday oo ku kala gelayay dhammaan gobolada dalka iyo gobolka Banaadir oo kamid yahay gobolka Banaadir waxaa ku gashay 32674 arday goboladana waxaa ku galay 15708 arday waxaa ka shaqeynayay imtixaanaadkaas 159 kormeere oo gobolada ah 164 kormeere oo gobolka Banaadir ah wadartoodana ay tahay sidoo kale waxaa ilaalinaya imtixaanka gobolka Banaadir 1666 ilaaliye goboladana waxaa ilaalinaya 1093 ilaaliye oo wadarta guudna marka la isku daro macal howlwadeenada xarunta dhexe ka shaqeynaya waxay noqonaysaa 3119 arday howlwadeen xarumo gaaraya 139 xarumood ayaa imtixaanka lagu galay 75 kamida waxay ahaayeen gobolada 64 xarumoodna waxaa lagu galay waxay ahaayeen gobolka Banaadir wasaaradda waxbarashada iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda waxay u diyaarisay arday kasta oo isku diyaariyay imtixaanka iska diiwaan geliyay oo ka diiwaan gashan imtixaanka qaranka in ay u abuurto jawi kasta oo imtixaanka uu si guul ah ku geli karo arday kasta oo Soomaaliyeed waxaa loo diyaariyay goobihii imtixaanka uu ku galayay waxaa loo diyaariyay macallimiintii ilaalinaysay waxaa loo diyaariyay booliiska amnigiisa sugayay waxaa loo diyaariyay tiimka caafimaadka oo haddii arrimo caafimaad ay dhacaan ka jawaabi kara intaasoo dhan oo dadaalo ah imtixaankii ay geli lahaayeen ayaa loo diyaariyey oo arday kasta fasalka oo fadhiisan lahaa ayaa loo diyaariyey aqoonsiga uu ku geli lahaana waa loo diyaariyey intaasoo dhan ayadoo ay dhacday oo wasaaradda ay qabatay ayaa maalintii ugu dambeysay imtixaankii la gelaya khamiista ahayd taariikhduna 19 bishii Juun ay ahayd marka maadada labaad ay dhamaatay oo imtixaankii uu soo gabagaboobay
waxaa nagula soo wargeliyey in dhacdo ay ka dhacday xarun la yidhaahdo imaam malik. isla markiiba waxaan ku wargelinay booliskii nagala shaqaynayay, durbadiina waa laga gaaray oo waa laga howlgalay. xarunta dhacdadu ka dhacday waa xarunta axmed gurey oo hadda la yidhaahdo imaam malik isku la yidhahdo ku shaqeeyo. xarunta waxaan u diyaarinay 35 ilaaliye iyo 478 arday inay ku galaan. sidoo kale waxaa nagula soo wargeliyey ardayga macalinka dhibaatada loo geystay, kadibna waxaan helnay riboodka ardaygii iyo maadooyinka imtixaanka laga kansalay intaba. wasaaradda waxbarashada iyadoo u mahad celinaysa macalimiintii kaalinta ay ku qaateen, gaar ahaan xarunta imtixaanka axmed gurey oo aad haddaba indhihiina ku arkayseen markhaatinaad ka ahaydeen kartida iyo waajibaadkii macalinka loo diray inuu si qurux badan uga soo dhalaalay. wax kastoo loo sheegana shaqadiisa gorgortan uu ka geli waayey waan uga mahad celinaynaa. ciidanka booliiska ayagana kaalintooda qaatay ayagana uga mahad celinaynaa. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ardadii sida sharafta iyo ixtiraamka leh macalimiinta ula shaqaysay, imtixaankooda si nabada ku dhammaystay, xaflad iyo dabaaldegna u dareeray maalintii imtixaanka uu dhammaaday. waxaa la yaab nagu noqotay iyo lama filaan arday Soomaaliyeed 12 sano wax la soo barayay inuu ku dhiirado una quuro macalinkiisii barbaarinayay, wax barayay, imtixaankiisa ka shaqaynayay, u suurtagelinaya imtixaanka si qurux badan inuu ku dhammaysto, inuu abaalgud uga dhigo, inuu gacanqaad u sameeyo, inuu u abaabulo qorsho aan laga filanayna arday Soomaaliyeed oo wax soo baranaya 12 sanadood la soo barbaarinayay. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in sidoo kale waxaa kaloo iyadana la yaab noqotay in ardaygaasi oo ka mid ahaa dadka ay loogu talagalay inay amniga muwaadiniinta ay sugaan, gaar ahaan macalimiinta markaas xarunta ka shaqaynaysay. waxaan ka rajaynaynaa insha Allah tacaala kiiskan inuu wadada saxda u maro, waana ku hanweynahay, waana uga barana maxkamadda. aada u mahadsantiin. in imtixaanka marka la ilaalinayo dadka ilaalinaya inay isugu jiraan kormeere, kaaliye kormeere iyo ilaaliye, soo sax ma sidaas in uu imtixaanka u nidaamsan yahay waa xeer jidaynayo soma oo ah xeerka imtixaanada laga keenay. soo sax ma macalin xasan marka doorkiisa waa doorka kaaliye kormeere waaye soma ilaaliye waaye. all right, balse annaga wuxuu noogu sheegay kaaliye kormeere noogu sheegay dhacdadii hore. ma sixi karaa meeshaas? yes. macalin xasan su-aasha markaa weydiisa waa joognay. arrinta uu kuu sheegayay waa qayb ilaalinta ka mid ah. shaqada uu qabanayo oo macalin xasan la xil saaray waa ilaalin. dhib male. magaca rataa wada tusaale ahaan macalinka kormeeraha markuu xarunta uu joogo waxaa ku qoran fasalada ardayda ku qoran galaaska tiro ka badan. waxaa loogu talagalay hadduu macalin galaas galo, macalin warqad gaarsii kara oo baqshadaha imtixaanka qaybi kara, weli asiga u kala qoondaysanayo macalimiinta si u kala dhiifan yihiin, u kala firfircoon yihiin, iska go'aanka iskala kormeero. marka shaqada oo meeshaas laga qabanayo waa wada ilaalin. ilaalin macnaheedu maaha kalaas oo hortaagan yahay arday hortaagan kaliya ma aha. shaqada uu qabanayo waa ilaaliye, wuxuu ilaalinayaa warqadihii go'a, hadduu arday caafimaad darre la soo gudboonaato, haddii qish lasoo qabanayo, haddii fasal culeys oo ka jiro. marka macnaheedu ma ahan ilaaliye fasal uu ku qoran yahay arday hortaagnaana qasab ma ah. kormeeruhu dadka lagu qoray isagaa go-aankooda la soo shaqada ugu kala qaybinayo. okay, waa ii caddahay. adigu waxaa tahay agaasimihii wasaaradda waxbarashada. ma jiraa halbeeg u degsan qashka ama qishka xilliga imtixaanada guud la galayo? ma u sharaxi kartaa heerka qashka ee waajibinayo in qof ku jira imtixaan qaran siiba maadooyin
muhiim ah in laga helo transcriptigiisa oo maadooyinka sayniska ah halbeeg u degsan oo haddii lagu helo ardaygaas oo ku muteysanayo in la waayo imtixaankiisa muu sharxi kartaa maxkamadda xeerka imtixaanaadka qaybo kala duwan ka kooban yahay ilaaliyaasha ku jira kormeerayaasha ku jira howlwadeen kasta ku jira ardadii baa ku jirta waxyaabaha waajibaadka ardayga looga baahan yahay ku jira anshax marinta ardaygu hadduu jabiyo waajibaadkaas la marsiinaya ku jira qishku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha mamnuuca ka ardayga oo imtixaankiisa uu ku weyi karo waa loo sharxay iyadoo duubana wasaaradda beeshkeeda la dhigay iskuullada waxbarashada dhammaantood way wada haystaan xog ogaalay ku yihiin ardaygu isagaa go-aanka iskale inuu ama xeerka fuliyo ama uu jabiyo jawaabteedana oo helay ciqaabteeda adiga ka agaasimo ahaan ma waxaad u xil saaran tahay wasaaradda in aad go-aan ka gaartid imtixaanada laga qaado ardayda qaab inay qashaayeen oo ah tiitarkaygu xafiiska imtixaan agaasimaha xafiiska imtixaanaadka shahaadooyinka waa maamulka imtixaanaadkaas bilow ilaa dhammaad ina si nabada kusoo dhamaadaan imtixaanada laga qaaday mucaad ma ku soo gaareen way soo gaareen riboodkooda waa haya imtixaanadaas laakiin imtixaankaas heerka qashka ma gaarsiisnaay in uu kormeere ama ilaaliye macalin oo ka qaadi karo arday markii aad fiiriday riboodka warqadda la soo raaciyey in qish lagu qabtay qishka nooca lagu qabtay dhammaantood waa u qoran yihiin mucaad adi hadda muu sheegi kartaa nooca qashka lagu qabtay telefoon buu ahaa telefoon okay mas'alada intaas waa uga baxa mas'alooyin kale ku yaala marka maadaama aad tahay agaasimaha xafiiska imtixaanaadka guddiga imtixaanaadka qaranka mas-uuliyad ayaa idinka saaran soo maaha asbuuca oo socdo imtixaanada in la sugo amniga macallimiinta boqolkiiba boqol maalinta ugu dambeedo imtixaanada waa maalin ay tahay in ay ka amni badan tahay maalmaha kale soo maaha oo macallimiinta maalinta ugu dambeyso waa maalin farxad iyo reynreyn iyo damaashaad iyo xaflado ay dhacaan ciidamada amnigana way ka howlgaleen ciidamada amniga waxay ka howlgaleen markii wax dhaceen kadib soo maaha ciidamada amnigu xaruntii loo xil saaray imtixaankan inuu si nabada ku dhaco kusoo dhammaado mas-uuliyaddaas iyo waajibaadkaas way kasoo baxeen ciidamada amniga mas-uuliyaddooda ma inay goobaha ilaaliyaan mase inay ilaaliyaan dadka oo jooga goobaha iyo dadka jooga inay ilaaliyaan soo halkaas kaagama muuqato maadaama macallimiin tiro 35 ah iskoolkaas joogay maalintaas iyaguna ay dareemeen in ay amni darro dareemayaan in booliskii loogu talagalay oo caawin waayo booliska loogu talagalay xarunta way joogeen xaruntana wax oo dhibaato kama dhicin kiiskana sidaad ka warhayso xarunta ka banaankeedu ka dhacay mid kale ku darso ciidamada amniga taliska qaybta guud habeenkii khamiista ayaa shir ka dhacay oo wasaaradda iyo ciidamada u dhexeeyay maadaama ay tahay maalintii gebagabada oo xaflade iyo damaashaad ay jiraan in amniga la xoojiyo arrintii waa la wada qaatay saldhig kasta iyo xarumo shantaraalna waxaa diyaar ku ahaa ciidamo u diyaara inay meeshii wax laga soo sheegay ka howlgalaan ilaa iyo haddana wax oo fadqalada oo dhibaato oo xarumihii imtixaanka ka dhaca ma jirin goobihii xafladeynta ay ka socotana wax oo caqabada ama amni darra oo ka dhaca ma jirin kiiskanina wuxuu ka dhacay xaafad iyo meel ka baxsan goobtii ciidanku ay joogeen su-aasha u dambeedo dhammaan macallimiinta 35 ah ee iskuul imaam maalik joogay dhammaantood waxay ahaayeen macallimiin sanadkan ugu horreeyay inay imtixaanka waardiyaan soo maaha imtixaanka sanadkan macallimiinta ilaalinaysay dhammaantood waxay ahaayeen macallimiinta dowladda oo wasaaradda waxbarashada ka diiwaan gashan soo maray dhammaan habraacyadii shaqaalaysiinta soo gudtay muxuu ahaa waajibaadkii loogu talagalay soo dhammaystirtay una soo gudbay imtixaan tartan ay galeen waa markii ugu horreeyay waaye ay imtixaan ilaaliyaan macallimiinta maanta la dhibaateeyay soo sax ma maya ma 8 sano ay ilaalinaysay ku sheegay
gaashaanle dhexe cabdulaahi xasan cali taliyaha booliiska degmada howlwadaag oo ka mid a saraakiisha guud ahaan u xil saaran amniga caasimadda iyo gaar ahaan hagidda xarumaha waxbarasho ee imtixaanaadka ee ku yaallo degmada uu wakiilka ka yahay ee isna dhegaysatay maxkamadda. mudane guddoomiye garsoorayaal, warbixintan kooban ee halkan aan ka jeedinayo waxay ku saabsan tahay dhacdadii ka dhacday 19 bisha 7 bisha 6 2025 degmada howlwadaag gaar ahaan iskuulka Imaam Maalik eriyadiisa. mudane guddoomiye, goobta wax ka dhaceen ma aha iskuulka gudihiisa, mana aha banaankiisa, waa goob ka fog iskuulka. dhalinyaradan mudane guddoomiye qorshe ay degeen ay diyaariyeen jirtay meel ka fog iskuulka ayaa loo galay macallimiintana qof loo ilaalimayne waxaa la ilaalinayay in la kala ilaaliyo waqtiga ardaydu baxayso iyo waqtiga macallimiintu baxayaan. sida uu sheegay dhibanuhu, guruubada macallimiintu waxaa lagu faray inay ka dambeeyaan muddo ku dhow 1 saacadood xilliga ay baxayaan ardada. sida aad ka dheehan karto mudane guddoomiye 21 November eedeysanayaasha mid ka mid ah ku galay imtixaamka, waxaana dareemi karaa musaafo oo inta ka imaado oo howlada ku tago inay u dhaxaysay xilliga ardadu baxayeen iyo xilliga macallimiintu baxayeen. waxay u galeen goob wadda 6 mitir ah sida laga dheehan karo kaamirada xeraalintu ay soo bandhigi doonto oo aan ku soo wareejinay xeraalinta. wiilashan ayagoo mootada ka degeen waa soo diyaar garoobeen, macallimiintuna way socdaan. macallim xasan oo dhibanaha ah ayaa arkaya, gadaal ugu fiirnaa, wuxuu arkaa nimankaanu soo ordaay. aniga waxaan maqlay markii dhacdadu dhacday, isla markiiba goobtan gaaray, waxaan la kulmay mudane guddoomiye garsoorayaal dadkii goobta joogay oo dhacdada markay dhacaysay goobjoog ahaa. maamo waayeelaha jirtay oo runtii aysan u saamaxayn inay maxkamadda hor imaato waayeel ah, waxayna warbixisay wax u dhaceen, kaamirooyinkana waa ka aragnay. annaga goobtaan gaarnay, goobta markaan gaarnay macallimiintii waxaan gaarsiinay guryahoodii inay si nabada ku tagaan. macallimkana waxaan u fidinay gargaar caafimaad, kadibna waxaan siinay warqaddii dhaawac muujinta si loo ogaado waxa gaaray macallimka. mudane guddoomiye, anaga waxaan ilaalinaynaa imtixaamka muddaan ka shaqaynaynay. weli ma aanan arkin macallin lagu goobtay oo la dhagax tuuro. waa aragnay, laakiin macallin bastoolad loola soo baxay oo la xabadeeyey weli ma aanan arkin. waxay ahayd dhacdo cusub runtii. taasa waxay kaliftay in aan ogaano oo bal sida wax u dhaceen aan si fiican u baarno. waxaa noo suurto gashay mudane guddoomiye eedeysanayaashii in baxsadka la raadiyo, mootay ku baxsadeen feekoon. sidaas ayaan noogu suurto gashay inaan kusoo qabanno oo aan xafiiska xeraalinta aan kala shaqeyno qabashadoodii. ujeeddada meeshaan taallaa wax kale ma dhicin, waa macallimkii ardayga barbaarinayay iyo ardaygii oo isu bedelay inuu mataqaanaa dhibaateeyo macallimkiisii. wax kaloo ka dhaca meesha ma jiraan. waa intaas. waxaan rajaynayaa maxkamaddu waa mahadsantahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. saldhigga aad taliyaha ka tahay doorkiisa muxuu ahaa imtixaan ilaalinta? meeqa meeluu ilaalinayay oo ka shaqaynayay? meesha hadda ay falku ka dhacayna saldhiggaagay ahayd, saldhiggaagay hoos tegaysa soomaha ilaalintiis. marka kooxaha iyo sidaa wax u ilaalinayseen bal noo sharax unugyada aa u xil saarteen. mudane guddoomiye, haddii aan maxkamadda u bidhaamiyo, saldhigga aan mas-uul ka ahay wuxuu ilaalinayay 13 goobood oo lagu gelayay imtixaamka. 13 goobood waxay ku kala yaalaan degmada daafeeda dhinacyada kala duwan. haddii aan ku tusaaleeyo, madaxtooyada agteeda oo kale iskuulaa ku yaalla ilaa warshadaha inta aan xuduud kala leenahay degmada Daynil oo kale. 13kaas iskuul ciidan loo ajandeeyey oo wasaaraddu usoo diyaarisay oo taliyaasha xukuma ay usoo diyaariyeen oo taliyaha qaybta guud oo nagu amray oo number la yaqaanaha ilaalinaya. waxay ilaaliyaan ciidankaas inay baaraan ardada gelaysa
amnigoodana ilaaliyaan ayagana qof isku xadgudbin macallimiinta ay isku xadgudbin gudaha ilaaliyaan ma aha banaanka intay u baxaan macallin kaste inta gacanta la qabto gurigiisa lama geey karo waad dareemi kartaa macallimiinta hal goob oo imaam maalik 35 ayaa ilaalinayay macallimiinta ah 478 na waxay ku galeysay maxaan ku dhahaa fasal ku galayeen marka askarta ilaalinaysana waa 11 askari ayaa amniga ay ilaalinayeen marka macallimiinta laba jibaar ayaa ka badan ardada askarta ka badan marka eriyadii mudane guddoomiyay garsoorayaal eriyadii si nabada ay imtixaan ku dhamaaday si nabada ayuu lagu dabaaldegay si nabada ayuu nagu dhamaaday ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadsan meesha wax ka dhacayna waa dhabagal ma aha goob oo normal ah maqaayad la fadhiista ma aha wada la maro waay marka macallimiinta wadadaas loo galay ayagoo isticmaalaya motifeecon kadib markay in soo gaartay macallimiinta say yeesheen maxaa u sameyseen intii hartay mudane gudoomiye markiina soo gaartay isla markiiba goobtan tagay macallimiinta goobtan ka soo waday guryahoodii aan geynay gawaaridii oo booliiska ayaan mataqaanaa ku daabulnay markii aan dhammaynana waxaan sameynay ehelkii iyo macallimkii dhib ku gaaray ayaan ayagana aan procedure sharciga marsiinay xariga la rabaa waqtiga xariga geysatay oo aad soo xirtay eedeysanayaasha waqtiga ay ku beegneed muhiim ay noo tahay waqtiga ku beegneed waxay ahayd 22 bisha habeen saq dhexe ayaa lagu soo guuleystay macaad kadibna kuwa kalena saas kadib lagu keenay 22 bisha intii ay socotay baarista iyo xariga eedeysanayaasha ka taliya ahaan ma ku soo gaaray war sheegayo in dhibkii dhacay xal laga gaaray maya anaga doorkeena ma aha inaan arrintaas ka shaqeyno macallinka dhibka gaaray xog wareysi ma la yeelatay dhibka kadib shaqadeeda waayaba awkaate macallimka markii dhibku gaaray inaan waxa gaaray iyo xaaladooda ogaado waa la yeelana waxaana siina warqadii dhaawac muujinta taasana waxay caddaynaa dhibka gaaray intuu leeyahay macallin xasan wuxuu xog wareysi kugu siiyey soo maaha in dhibka uu gaaray isaga xilli oo wax badqab amniya oo haysan soo sax ma ku fahmi wali macallin xasan wuxuu xog wareysi kugu siiyey xilliga oo dhibka ku dhacayay in uu ahaa qof aan amnigiisa sugnayn soo maaha maya boolis ayaa amnigiisa sugayay xilliga dhibaatada dhacayda soo maaha maya wadada ku socda sabab amni loo sugay mas'alada kale aan ku weydiinayo waxay tahay qofka soo socda askari ma lagu daraa awkaat warjeena inaad fahansantahay qaabka amniga loo ilaaliyo macallin xasan ma ku jirtaa xog wareysigiisa in maadaama asaga la dhibaateeyey hadda oo wax dhiba oo sheeganaynin oo laga dhayay laga booyay dhagay heshiisna laga gaaray dhibkiisa xog wareysigiisa ma ku jirtaa yaa la yeeshay wareysigaas soo aad ma dhihin xog wareysiga la yeeshay xasan aniga wareysiga la yeeshay nin dhiban oo dhiig ka da'ayo oo la dilay oo ardadii oo ilaalinayay oo barbaarinayay ay dhibaateeyeen ayuu ahaa wixii ka dambeeyay aad ma noo akhri kartaa farqa kamid xog wareysiga ala sameeyay xasan maxkamad noo akhri kartaa waxaan codsaynaa in naloo akhriyo maca gudoomiye wareysiga la yeeshay dhibana xasan ustaadka in la dhibaateeyey oo dhib loo geystay oo arday ay dileen baaritaankiina waa ku ogaanay asna waa noo sheegay taariikhda aa wareysiga la yeelatay ma noo soo gudbi kartaa taariikhda maalintii shir dhibku dhaca waayaba 19 bisha xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo uu wakiil ka yahay dhamma cabdicasiis cusmaan faarax cabdiyare ayaa maxkamadda weydiistay inay qaadato go'aano badbaado u ah badqabka macallimka ilaalinta ardayda mustaqbalka geli doona imtixaanaadka aayahooda dambe iyo sharafka ciidamada oo ay si gaara ugu xadgudbeen moole iyo joojoole gudoomiye gasoole maxkamadda sharafta leh askari ka tirsan hay'adaha amniga in uu wax barto muhiim ayay u tahay waddankan iyo qarankan maxaa yeelay waxbarashada waxay kaa reebaysaa xumaanta waxay ku faraysaa wanaagga waxay kugu abaabinaysaa fiicnaanta iyo inaad marka hadlaysa xataa hadal wanaagsan aad ku hadasho yaa kugu abaabinaya waa waxbarashada askariga marka inuu wax barto waxay muhiim u tahay qarankan waxay muhiim u tahay eedaysana mucaad meesha uu ka tirsanaayo oo jagboontiyada
maxaa yeelay askari wax bartay markuu soo maro macallinkii wax baray ama macallinba dhikaar macallin ku qoraya markuu arko askari wax bartay qiimaha macallinku wuu fahmaa muhiim marka ay waddankan u tahay hadaa amnigana muhiim u tahay mudan gudoomiye qarsoola maxkamadda sharafta leh dhacdooyin ah in macallin la weeraro ama la hajuumo ma cusbo wax cusub ma macallin in la weeraro oo arday iyo macallin isku dhacaan wax cusub ma laakiin maxaa cusub waxaa cusub in askari qaran oo dhibbo soo maray oo tababar soo maray oo yaqaano in gacanta cadaaladda ay soo gaarayso sida ugu dhaqsiyaha badan in uu ku kaco falkan weliba loo geysto bastoolad loo adeegsado hubkii qaran askarigan maxaa u fasaxay oo ka reebay ardayda kale waxaa ka reebay askarigan waxaa la baray tababar qaabka loo ridaa la baray waa lagu aaminay marka qaranku wuxuu ku aaminay bastooladaas inuu xafidi karo inuu ilaali karo laakiin qofka kale shacabka waxa u furan inuu ma ilaali karo dhaho inuu waa iga fakata dhaho waxa soo dhan u furan laakiin qofka caadi qofka askariga uma furna sheekadaas maxaa yeelay waa la tababaraa la gelshay mid ka mid ah waa special force sanaa labaad waa danabna waa taqaanaa tababarka ay qabaan iyo heerka ciidamada ay ka gaarsiisan yihiin sumcadda ay leeyihiin marka labadaa askari oo labada sano ugu horeysa ah waa ka duwan yihiin qof caadi oo shacab oo waxyaabay uu sameyn lahay marka askariga muhiim waa inay wax barto hay'adaha amniga inay wax bartaan muhiim waa dhacdooyinkan inay dhacaan dhacdooyin dhici jiray oo waxyaabo la arki jiray waa laakiin waxaa cusub in macalinta bastoolad loo qaato xabada lagu rido la kala tuuro ayadoo loo adeegsanayo awood ka baxsan awoodiisa oo xataa haddii gacmaha iska adeegsan la xatee meesha waxaa taalo waa ka awood badanahay waxaa taalo xabadaa taalo sidoo kale muhiimadda macallinku uu leeyahay maxay tahay mudan gudoomiye gasola maxkamadda sharafta leh muhiimadda macallinku uu leeyahay waxaa lagu sheegay aayadaha qur-aanka deblanisa mucaad cabdikariin cusmaan cabdi mola loo yaqaano iyo cabdulaahi axmed jimcaale sahal joojole waxay ka tirsan yihiin ciidamada qalabka sida horaa u sheeg mudan gudoomiye mid waa danab midna waa nis fadhiyadooda ciidanka waxaa looga soo fasaxay in ay imtixaankii qaranka ay galaan maxaa yeelay taliyayaasha ciidamada waxay fahmayaan askariga aqoonta leh faa'iidada uu leeyahay saasaa loo soo fasaxay mudan gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh fadhiyadii laga soo fasaxay iyo waajibaadkii qaranka laga soo fasaxay loo soo fasaxay inay waxbarashadii iyo imtixaankii ay ka qayb galaan maadaama askari aqoon leh uu muhiim u yahay dalka iyo dowladdaba waxaa laga rabay inay tusaale u noqdaan ardayda kale ardayda waxaa la rabay inay jeclaadaan askarnimada maxaa yeele goormo jeclaha wuxuu arkay cabdulaahi joojole oo sida tababarkii la soo siiyey ku hugan oo ka shaqeeyahaya imtixaanka oo macallimiintii dhahaya laga leexdo ee dhahaya arday wariyaa macallin ka leexdo toosin inay u noqdaan macnaha mudan gudoomiye gasola maxkamadda sharafta leh intay uga dayaan marka xagga akhlaaqda maxaa yeelay dhibowga waa xanuun iyo dhibaato la marsiyahayo askariga waay dhibaatadaas marka la marsiyahayo waxaa laga rabaa dulqaad akhlaaq karti baalka waxaa waaye wanaag inuu ka qaado wanaagaasaa la rabaa marka ardayda kale inay arkaan oo askarnimada ay jeclaadaan saas askar ay ku noqdaan si loo helo arday askari ah aqoon leh si loo helo mudan gudoomiye gasola maxkamadda sharafta leh marka waxyaabaha dhacay maxaa waaye akhlaaq xumaa dhacday yaa sameeyahay kuwii lagu daya lahaa maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen iyagaa qishka bilaabo horta number 1 mucaad asaa qish bilaabo 2 maalin oo xiriir ah ayaa laga kala qaaday maadooyinka physics uu galayay maalinta labaad iyo maadada biology uu galayay maalinta saddexaad halkii ay ahayd khaladkiisa inuu saxo ayuu ku dhacay mid ka dara mid ka hore wuxuu soo abaabulay in macallimiintii la jir dilo in la xabadeeyo iyo asagoo soo kaxaystay abaabulka iyuu ku sameeyey wuxuu sameeyey saaxiibadiis cabdulaahi joojole iyo ardaydii oo cabdulaahi joojole asiga imtixaanka wuxuu galaya 21 November waa beri waay abuukar wuxuu imtixaanku galaya holwadaag sare waa iskooskan holwadaag waay mudan gudoomiye gasola maxkamadda sharafta leh waxa uu soo wado oo waa beri uu soo wado inta mooto soo qaad oo intan uu holwadaag u wado oo u geeyey SIU gadaasheeda naceed waxay ahayd inay macallimiinta garaacaan taas ayaana dhacday
ujeedka muxuu ahaa qasdi inuu jaro waa marka faldambiil la galaayo qasdig muxuu ahaa macalinkan physics iyo biology qaaday inuuna nabad ku tagin xaafadiis qasdig ma dhacay waa dhacay mootaa la soo watay waa beriyaa la imaado joolaal qaaday walwaalaga is ayuu la tagay way dhacday muddo gudoomiyaha sare maxamed rafta leh macalinka marka faa'iido uu leeyahay waa soo sharaxay macalinka waa aabaha labaad waa booska waalidku ku jira aabaha ina u gacan qaado maxay noqonaysaa aswaaldiin waliba ina gacmaha ka qadutaan halis macalinku waa saas marka habaarkiisa iyo baalkiisa dhan waxa waaye waa dhibaato waay muddo gudoomiyaha sare maxamed rafta leh waana waajib in la ixtiraamo macalinka oo la ilaaliyo oo la ixtiraamo oo fadhiga looga kaco oo kursiga lagu fadhiisiyo oo la boqro waxay sawir qaldan markaa ka bixiyeen ardaynimada iyo ciidannimada meeshaas muhiim waay maxkamad inay calaamaysaan rabaa nimankaan aragnay oo aan ka fiirsanay meeshaan oo kaamirada ay duubtay qaab maafiya ay u socdeen qaab socodkooda xataa qaab maafiya u ahay qaab dhaqankooda qaab maafiya u ahay marka waxay ka baxeen xadkii ahaa ixtiraamka macalinka sidoo kale waxay ka baxeen oy jabiyeen ardaynimadii arday waa baari asaa gacantii lagu hayaa baalkii shahaadada uu qaadan lahay asaa la rabaa inuu hoggaanka barto asaa sidii geel oo la hoggaaminayo camal inta ka xiran oo imtixaankiisa la hayaa qaab fiican u dhaqmo marka muddo gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh gabagabadii iyo guntii eedaysanayaashan waxaan ku soo eedeennay qodobo kala duwan qodobadaas oo kale ah 231 waan ku sheegnay waxay dhiirigelinayaan in dembigaas zaa'id uu noqdo oo socdo lana waayo imtixaan cid ilaaliso waa haddii ardaydan falka foolxumada badan sameeyey askarta ah haddaan laga qaban uusan qaban sharciga uu hor istaag maxaa ka dhalanayo waxaa ka dhalanayo dembi meel fagaaro ah oo kaamira duubayso oo loo jeedo in lagu galo aa fududaanayso sidoo kale muddo gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh waxaa fududaanayso cabsigelin dadweyne macallimiinta dadweynaha ka mid yihiin macallimiintu waa cabsoonayaan wax imtixaan ilaalin waa la weynaa wasaaradda waxbarashada xataa wax u shaqeeyaa la weynaa saa la liida sadu daraaca liira dhibka in laga hortago oo hadda la xiro go'aan adag laga qaato ay keenaysaa taas haddii kale maxaa dhalanayo xasiloonida guud iyo cabsigelintii ay sameeyeen kuwa kala sameeyaan bari say usan u dhicin marka maxaa waajib ah waxaa waajib ah go'aano cadaaladda ay ku fadhidaan in la helo marka muddo gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh 440 way dhacday 434 440 waa dhaawaca soo bandhigna rafeetooyinka lahaa dhacay 434/17 uu dhacay oo isku day dil macallin xabad brr lagu siiyey haddana intaa loo soo jeestay saas waa waxyaabaha oo ka muuqda kaamirada ka mid ah muddo gudoomiye eedaysanaha labaad asigu wuxuu ku dhacay wuxuu fidiyey waxa la yiraahdo gacan siin dambi wuxuu gacan siiyey eedaysanaha saddexaad ka hadlaa Abu Karbanya wuxuu gacan siiyey eedaysanaha kale mootadii uu ka dabageeyaa haddana inay fakadaan ku shaqeey macalinka la dilay markuu ark waxay ahayd inuu tabaxo oo ordo oo saldhigato war kuwana macalinka dilay macalinkeena la dilay kaale ka qabtin oo dhan Abu Kar ma sameeyay muxuu sameeyay bedelkeed inay fakadaan oo laamaha cadaaladdu way gacan dheer tahay si tartiiba ay u soo qabtaan saldhiga degmada Hiilawaa oo aad uga howlgala arrintaana uu ku dambeeyay in eedaysanayaasha soo gacan galaan si dhaqsi aan cadaalad u helaan oo ku maasan yahay taliyaha saldhiga muddo gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh maxkamadda sharaf kale waxaan ka codsanaynaa laba arrin waxaan dalbanaynaa in ciidanka laga saaro labada eedaysanay kore oo kala ah eedaysanaha koowaad Mucaad Cabdikariin Cusmaan Cabdi Moolo waa hay'adaha amniga magaaladan qaabilsan caasimadda muunad xumeyn ayay ku tahay in Mucaad oo saas qabixnimada ah kaamirada ka muuqatay u dhaqmay inuu ciidamada ka mid ahaado waxay ku tahay muunad xumeyn askariga qaran ee jidka taagan maxaa yeelay askarigu wuu fiirsanayaa inaan wax iska qaadin uu dareemaa wuxuuna sameynaa isla falka haddana si aysan u dhicin marka askarta u dareemaan inay qad cagaaran tahay macallin in la taabto in loo dhawaado macallin waa in askarnimada laga saaro sanaha koowaad nabad sugidda laga saaraa
لمبر لبو إذا سنة لبعض عبد الله أحمد جمعال سهل جوجولي وكتر سنة ضنب توبرا وصور ماضي حلي وفعنا ولا كيف إذا سلا يكجرها ولي هالقلادي ودن كحتى ما أدين أنتوا توبرك صباح فريش سو فريش واحد دوسمي هذا إذا ما قالوا أو قال كيانو حال ربي وحي توبرك يا مغضي لين هذا وقاتي حال ربي إنه أقامتي وهايو هذا هال سنة لبس أنا شغال وحي أقدر مودي كريا لكن هذا توبرك صباح وحي أبو كجرا علمي وكجريا دولة قرش كيد وكجريا وحيابا صرنا كجرا مرك أسجنوا حاصلنا من قدوم يكسر مع كبر شرف ترى حنقدر بنا ناسي وسنودعين معلومات إلا دبعتيو دام إذا ماذا كتر سنين إن عيدا أسجنا عيدا كلا صار السنة لبعض السنة سدحات أبوك إسماعيل حسن محمد نا وحن عصرنا أسجنا إنقذ بدي أنقصه إذا ني يكون حكومته مركز عيدا ماذا يكسرته سدح ذو وحن عصرنا إن قذ بدي أنقصه إذا ني ودعوة سكودي دلك عرقلين عبس جلين إن يكون حكومته محكمة ما سنتهي salaad maxamed cali oo ah abukaataha u doodaya eedeysanayaasha ayaa mas-uuliyadda maamul iyo tan amni darre ee natiijada halkan loo joogo u riixay wasaaradda waxbarashada iyo ciidamada amniga waxa uu maxkamadda la tegay heshiisyo qoys oo eedeysanaha koowaad iyo dhibanaha soo gaareen isagoo si gaar ah maxkamadda uga codsaday naxariis iyo inaan lagu dheereen ciqaabta waxaan rabaa doodayda isdifaacidda in aan maxkamadda step by step aan ugu sharaxo mas'uuliyad darrada kala duwan ee ka dhalatay in macallin qaran oo ilaalinayo mid ka mid ah imtixaamada ugu sarreeyo ee dalka ee la galo sanad kasta xilliga bisha 6aad mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh badqabka horta nafta ayaa waxay tahay waxa ugu muhiimsan marka ay timaado dhooris wax la dhooro waxa ugu muhiimsan nafta aadanaha maanta waxaa halkan lagu dhageysanayaa macallin lagu dhibaateeyay asagoo gudanayo sida la sheegay shaqadiisa qaran mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan dhammaanteen ognahay markii la qaadayo imtixaanka ugu muhiimsan ee dalka laga galo sanad kasta ee la yiraahdo imtixaanka guud ama imtixaanka qaranka ee looga gudbayo waxbarashada heerka galaaska afraad ee looga gudbayo waxbarashada heerka sare waxaan ognahay muddo dheer in dowladda federaalka Soomaaliya ay imtixaankan mas'uuliyadiisa iska saari jirtay oo dadka ilaalinayo ay sii jirtay ahmiyadda ugu weyn ee la siiyo qof ammaankiisa balse maanta waxaan aragnaa ahmiyaddaas ka saareed dowladda Soomaaliya siiba howlwadeennada imtixaanada iyo hay-adaha kale amniga in ay sameeyeen ama ay ka gaabiyeen mas'uuliyaddii raatibka ahayd ee sanad walbo ay mudnaayeen macallimiinta iyo howlwadeennada ilaaliyo imtixaanada qaranka waxaa muuqato mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh in mas'uuliyad darro weyn ay meeshaan ka dhacday oo aanan loo nisbay karin ardaydaas isugu jirto arday iyagoo dhammaysan iskuulka ama waxbarashadii sare ciidanka ku biiray muddadii ahayd inay ku qaataan waxbarashadooda sarena waqti ka mid ah ku bixiyey sugidda amniga mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh eedeysanayaasha saddexda ah sanadkan waxay u fariisteen imtixaanka qarankay u fariisteen waxay rajaynayeen in fursaddii ka dhuntay ay helaan imtixaan galaan ku baasaan shahaado qaataan dib ciidanka ugu laabtaan koorsooyinka ciidanka iyo fursadaha ciidanka ka dhex jiro in maadaama shuruud looga dhigo qofka koorso aadayo ama aqoon kororsi aadayo shuruud looga dhigo shahaado iyo aqoonsi looga dhigo sidaas ayay horta sanadkan saddexdaas eedeysane labada ciidan oo ka mid ah sidaasay sanadkan waxay u soo fariisteen
imtixaanka qaranka ah oo shahaadiga mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh imtixaankaas waxaa mas-uuliyaddiisa qaado hadday tahay qaab dejintiisa ka howlgelidiisa amni sugiddiisa laba hay-adooda waaweyn hay-adda amniga ee booliska oo u xil saaran dadkaas kala duwan oo isugu jiro arday macallimiin kormeerayaal ku-xigeenno ama kaaliyaal iyo guddi kale in ay ilaaliyaan 5 maalin ama 6 maalin ee la gelayo imtixaanka laguna kala gelayo meelo kala duwan tusaale ahaan markii aad fiirido macallin xasan oo ah macallinka maanta maaragtay dhibanaha u ah eedeysanayaasha saddexda ah iskuulka loo xil saaray oo guddiga imtixaanaadka qaranka amase wasaaradda waxbarashada u xil saartay in uu kaaliyo kormeera ka noqdo waa iskuul ku yaallo meel aad iyo aad uga fog magaalada dhexdeeda amniga markii mudnaan la siinaayo meelaha lagu kala gelayo imtixaamada meelna waa sentarka magaalada oo marnaba lagama qabo in ay ka dhacaan wax rabshado ah meelna waa meelo fagooro ah sida hadda aan ka arkaynay galiibka ama cc kamerada oo ah meel ka baxsan magaalada oo geeska ah amniga waxaa xil ka saaran yahay goobahaas in ay isku si ayna u ilaalin ay mudnaan kala duwan siiyaan goob kasto ee loo malay karo in amni darro ka imaan karto mar kasto in ay ribood ku wadaagaan aan ka soo tago hay-addaas amniga ah oo 5taas maalin xooggeeda isugu geedo in la ilaaliyo imtixaanka dadkaas galayo waxaa kaloo mas-uuliyad darro ka timid mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh wasaaradda waxbarashada oo aan ognahay in ay shaqadan ay tahay shaqo ay aqoon u leedahay loogana dambeeyo laguna caawiyo in dadkii ay u soo xulatay imtixaankan inay ilaaliyaan oo isugu jiro macallimiin ilaaliyaal kormeerayaal iyo howlwadeenno kale in lagu xisaabtami waayey war sanadkan dadka aan imtixaanka ka qaadayno kategoriyaashay noogu kala jiraan waxaa soo gala sanadkan arday waxbarashadii ka baaqatay askar ah diyaar u ah in ay maaragtay waxbarashadoodii ka baaqatay ay soo galaan waxaa soo gala sanadkan dad oo waayeelo ah oo 60 sano ka badan oo diyaar u ah waxbarashadii yaraantii ka dhuntay inay soo ceshadaan mudnaan lama saarin haddii ay ku jiraan ardayda dad ciidan soo noqday mar kastoo waxaa la og yahay in maaragtay ardayda kale ee shibilka ah in aynan maaragtay wada shaqay karin wasaaradda mas-uuliyad horta iskama saarin tababarada loo sameeyo macallimiinta iyo howlwadeennada waxaa lagu soo darin in loo sheego macallimiinta oo la yidhaahdo imtixaankan waa final uma baahno more regulation uma baahno in la cadaadiyo ardayga ee wuxuu u baahan yahay in ardayga lagu kaalmeeyo bareesharka saaran laga dhimo lagu kaalmeeyo imtixaankan sidoo nabadgelyo iyo farxad uga bixi lahay laakiin meesha waxaa ka muuqata mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh macallin xasan iyo macallimiintii kale iskuul imaamu maalik ka shaqaynayeen markaan su'aalo weydiinay kartida aqooneed ay u leeyihiin ilaalinta iyo kormeeridda waxay sheegeen in ay dhammaantood yihiin ama 3 macallin hadda la wareystay oo macallin xasan ku jiro in ay yihiin macallimiin mar dhow wasaaradda macallin ahaan u qaadatay sida ku xusan xeerka imtixaanka qaranka oo xeerkaasna lagu sii aas-aasay guddiga imtixaanka qaranka wuxuu tilmaamayaa in qofka wax waardiyeynayo macallin ha ahaado howlwadeen kale ha ahaado in shuruudo lagu qaato shuruudahaas oo ka dhigan in qofkan wixii loo dhiibay oo dhibka imaanayn laakiin sida naloo sheegay macallimiin aad u khibrad yar in ay imtixaanka goobtaas ay ilaalinayeen mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa kaloo lagu baraarujin howlwadeennada ilaalinayay
imtixaanka qaranka ee sanadkan waxaa inaba lagu baraarujin halbeegga ee tahay in qash lagu qaado arday gelaayo imtixaanka madambays ah ee moobeel $10 joogo oo aan ahayn smartphone lagu helay in looga qaado maadooyin transcriptigiisa ama natiijadiisa imtixaanka dhaawac gelinaydo meeshaas waxaa ka muuqato mas-uuliyad daraa ka muuqato waxaa kaloo jirto mudane guddoomiye garsooraha maxkamadda sharafta leh asbaabta ugu weyn ee dhaawaca macalin xasan keentay waxaa waaye ardaydaas saddexda ah oo 2 ka mida ciidan yihiin oo sanadkan keliya fursad u helay in ay ka faa'iidaystaan oo ay galaan imtixaankaas in maadooyin muhiim u ah oo maanta haddii aynan ku baasin ay ku dhacayaan imtixaanka fursad kalena ay u fureen in maaragtay maadooyinkoodii ayadoon maaragtay qaab aan habboonayn looga qaaday mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa aad loo ammaanay macallinka waa ammaanan yahay sababtoo ah annagoo dhanoo waxna soo baray taliye cabdulaahi madoobe oo ah taliyaha u xil saaraay amniga goobtaas iskuul imaamu maalik oo ku yaallo su-aalaan weydiinay su-aashaasna waxay ahayd soo mas-uuliyad idinkama saareen in maalintaas u dambeedo maadaama macallimiinta ay dareemayaan qalqal amni in aad macallimiintaas mas-uuliyad iska saartiin oo si badqaba ay ugu laabtaan halka ay ka yimaadeen wuxuu ku jawaabay annaga ma hayno baabuur aan macallin qafqaf aan intaan ugu saarno aan guryihiisa u geyno taas mas-uuliyad darro waa guddoomiye waxaan rabaa inaan si fiican uga jawaabo hadalkaas iskuullada macalin xasan iyo macallimiinta kale ay ka kala yimaadeen dhammaantood waxay leeyihiin basas qaada ardayda qof kasto arday kastana gurigiisaa loo joojiyaa woona ku degtaa iskuulka sidaa sameeyey 52 asbuuc oo ka kooban yahay sanadka maalin kasto bas arday intuu ku qaado hal u geeyo hal maalin oo ay macallimiinta soomaaliyeed 5 maalin ay shaqaynayeen hal maalina ugu dambeeyay booliska amniga ama amniga qaranka ma waxay awoodi waayeen inay maalintaas baabuurtooda ama baabuurtii iskuullada la soo wado oo macallin kasto meesha ugu dhow gurigiisa la geeyo ma marsiimo noqoto kaab mudane guddoomiye waxaan innaba ma marsiyo noqon karin iskuul shaqo oo maalin kasta qabto booliska soomaaliyeed hal maalin inay qabo waayaan waxaana sii dheereed markii macalin xasan la dhaawacayo dhammaan booliska qaranka saraakiisha ugu sarreedo ilaa ay kuwa ugu hooseeyo waxay la ciyaarayeen sida laga helayo baraha bulshada ardaydii foonfoorka ahay wakhtigaas markii la fiiriyo askari diiti ku jiro waa sharci darro inuu celebration sameeyo celebration ama dabaaldeg waxaa sameeyo qaf fasax qaatay oo off duty ah waa laga heli karaa baraha bulshada taas waa mas-uuliyad darro weyn oo soo hoyata sanadkan horena way u dhacday cashirana lagama barto meel iskuul maalin kasto 500 oo arday calaa arday gurigiisa geynayo qof kasta annaga arday wax noo bartaan dadka maaragtay sharci joogaa ardaydooda wax u bartaan maalin kasta gurigooda basaa yimaado maanta waddanka waa dhisan yahay meel kasta waxa waaye waa wada laami in iskuul maalin kasta shaqo oo qabanayo 365 maalin hal maalin booliska qaranka ee macallimiinta saan loo ammaanay ee la yiri macallinka wuxuu dhow yahay in uu rasuul gaaro xurmadaas la gaarsiiyey hal maalin loo fuli waayo ee macalin xasan iyo saaxiibadiis waddo cidlo ah booliskoo iska dabaaldegaayo oo taleefanadooda isgaarsiinta xitaa iska xiran yihiin ee ardayda galaasyada ay ugu qorayaan waxaa lagu qorayaa maaragtay booliskiyaa wuxuu ku qoraa markuu macalin xasan dhaawacay dhibaatada loo geysaayo boolisaa wuxuu ku qorayaa galaas dhexdiisa ardayad ama arday oo magaceedu wuxuu ugu qoraa dhar maaragtay loogu talagalay maaragtay in la isku asturo saraakiisha ugu sarreeyay dalka ayaa celebration sameynaya madaxdii imtixaamada dhammaantood waxaa waaye
waxaana haysan ribood ah war macallimiinta wax bad qaba iyo waxaan bad qabin ma jiraan waxba ma jiro qof kasta taleefanadeedu dansaday mudana gudoomiyey garsooreyaal maxkamadda sharafta leh dhacdadaas booliska Soomaaliyeed waa ka jawaabi waayey macallinka Soomaaliyeed ee la sharfay ee quraanka iyo axaadiista aan hadda dhageysanay lagu amaanay waa looga garaabi waayey hal maalin waa looga garaabi waayey mas'uuliyaddaas waxaa iskale maanta gudoomiyey wasaaradda waxbarashada waxaa iskale ciidanka booliska Soomaaliyeed intaas markaan ka baxo dhacdadaas waxay toos u gaartay eheladii dadkii oo eedeysanayaasha way ka jawaabeen looma garaabin macallin xasan dawladdu uma garaabin laakiin waxaa u garaabay eedeysanayaasha eheladooda u garaabay gudoomiye garsooreyaal meeshaan waxaan rabaa maxkamadda inaan ugu soo gudbiyo heshiis tilmaamayo in loo tegey macallin xasan haddana markii la wareysanayay macallin xasan inuu sheegay dhibkii gaare in looga garaabay eedeysanayaasha dhibaatada u geysteen ehelkooda inay u yimaadeen maadaama ay yaqaanaan qiimiga macallinka macallin xasan wuxuu halkan ku qoray gudoomiye garsooreyaal in dhibaatadii loo geystay ardaygiisa u geystay isagoo dulqaad muujinayo in uu maaragtay si waafaqsan aayatu baqara 178 qeybaheeda dambo aayadaas in uu maaragtay ku camal falay heshiisna uu ku aqbalay aayadaas qeybaheeda dambana oo heshiiskan nootaayada ku qoran waxay leedahay faman ufiya lahu min aqihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaa'un ilayhi bi ihsan macallin xasan maxdarka maanta yimid si cadaalad loo gaaro su'aalo ayaan weydiinay su'aalii oo nooga jawaabay waxaa ka mid ahayd aniga wax oo aan qabo dacwad ah ma jiro waxay wax yeelay waa ardaygeegi waxa wax iga soo hoyday waa waalidkiisa laakiin meeshaas maanta waxaa ku soo gabagaboobay dadkii mas'uuliyadda ay ahayd imtixaankaas in ay ilaaliyaan oo ay hagaan oo ay bad qabayaan macallinka sida loo amaanay inay maalintaas la seexday taleefanadana la dansaday dhayeel iyo ciyaarna la aaday gudoomiye wayna caddahay baraha bulshada laga heli karaa maxkamadda aniga midaas waxa waaye waa u ifinayaa lessonkan maanta in la barto mar dambana oona soo noqonin ayaan maaragtay rajaynayaa mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh eedeysanayaasha labada ahna fal hore u qorshaysnaay oo macallin xasan lagu beegsanayay maalintaas kuma soo diyaar garoobin dhibaatada macallin xasanna haddii hoos loo galo waxay ka dhalanayaan waxa afka qalaad loo yaqaano heat of patient qofka in uu kululaado asagoo wax tabanayo tabashadiisa la aqbali waayo xataa ma jirin labada eedeysane oo askarta ah meel loo tilmaamo oo intay tagaan ay dhahaan war annaga laba xiiso ama laba maado oo muhiim u ah shahaadadeena oo macallin xasan maaragtay oo noogu xadgudbay maxaa maaragtay xalkeena yahay ma jirin 35 macallin kaliya la sheegay ma jiro guddi maaragtay dhexdhexaadiyaal ah meel kastoo la isku yimaado guddi khilaafaad ay leedahay gudoomiye waxaasoo dhan wasaaradda waa ka gaabiday macallinkii la amaanayna aada loo dayacay maalintii u dambeeyay ayadoo iskooladu maaragtay sidaa hore u sheegay ay maalin kasta calaa arday iskoolka hadda SYL oo ninka dhigtaa 3,000 oo ardaya joogto iyo ka badan halkii iskool basasoo leeyahay iskoolka maalin kasta iskoolka waajibkiisa waxa waaye amniga ardayga inuu wado gurigiisa geeyo soo celiyo subaxina waa la soo qaadaa galabtina waa la geeyaa marka hal maalin ciidanka booliska Soomaaliyeed ma laga heli waayay in ay macallinka la amaanay oo rasuulka la gaarsiiyay in jidka laga qaado xaafadiisa la geeyo mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh marba doodda inaan dheereeyo waxaan rabaa halkaa inaan usoo gudbiyo heshiis iyo ittifaaq iyo maslaxo ilaahay wuxuu yidhi wasulxu khayrun macallinkana waxaa waaye a patient person waaye waa qof yaqaano xirfadda the art of patient macallinka the art of patient wuxuu yaqaanaa xirfadda dulqaadka waa ka wada xunnahay macallin xasan waxaan rajaynaynaa in nala ka aqbalo heshiiska maxaa maxkamadda ka codsanaya maadaama macnaha ninkaas aan isgaarnay xabsi ciidanna aan maray oo heshiisna ninkaas iraalgelin familkiisa ugu tagay in xuriddii dabliisa
maxkamadda waxaa ka codsanaya inay dib noo siiyo xorriyaddeena. maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaa maadaama aan si waadaxa kiiska ugu jirin inay xorriyaddeeda ugu soo celiso. fadhigan oo ay maxkamadda wakhti ku filan siisa ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuuje. cabduqaadir ciise, warbaahinta qaranka, muqdisho.